madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ciro ayaa markii ugu horeysay si toos ah u soo qarxiyay banaankana u soo dhigay dhammaanba ceebaha iyo sidoo kale tillaabooyinka kala duwan ee la xiriiray qorshayaasha dowladda Qatar ee sababtay in madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu si degdeg ah gebi ahaanba uga soo duulo waddankaasi isla markaana uu ku soo guriyo noqdo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro sida aan horey u baahinayba xubno kala duwan oo ka tirsan dhankaas iyo madaxda sare ee waddanka Qatar waxay si toos ah uga shaqeynayeen sidii raaligelin toos ah loo bixin lahaa isla markaana meesha looga saari lahaa hadallada meel ku dhaca ku ah qarannimada Soomaaliland. madaxweyne Cabdiraxmaan Cirona si toos ah looga dhaadhiciyo in uu sii joogo gudaha waddankaasi Qatar, balse arrintaas waxa ay u muuqatay mid aan suuragal ahayn isla markaana socon weyday iyadoo dhinacyadu ay si weyn u xoojinayeen guud ahaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda. xubno ka tirsan maamulka waa qaybta ka ah waddanka Qatar iyo sidoo kale qaar ka mid ah wafdiga madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa soo jeediyey in madaxweynuhu uu Qatar ku sii sugnaado. haddaba waxaa la isweydiinayaa xogtii hore ee la xiriirtay in dowladda Qatar ay raaligelin bixinayso madaxweyne Cabdiraxmaan Cirona uu sii joogayo waddanka Qatar maxaa iska bedelay oo sababay in madaxweynuhu uusan hakin safarkiisii degdega ahaa iyo sidoo kale kasoo noqoshadiisii waddankaasi ee waa Qatar. xogaha kala duwan ee aan helnay waxa ay muujinayaan in marka laga hadlayo dhankaas iyo madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ciro xubnihii kala duwanaa ee la shaqeynayay ay si toos ah uga biyadiideen isla markaana ay meesha ka saareen dhammaanba qorshayaasha go'aanada iyo tillaabooyinka gaarka ah ee saameynta leh, iyadoo taas ay ka dhigayso in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu ku guda jiraan xilligii iyo sidoo kale waqtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambeysa ay bannaanka soo dhigi lahaayeen awoodaha iyo tillaabooyinka goonida ah ee qorshayaashooda saameynaya, taasoo ka dhigaysa in lagu guda jiro xilligii iyo waqtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu ku xoojin lahaayeen wax kasta oo la xiriira go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan. taas oo muujinaysa in isbeddel gaar ah uu ku imaanayo qorshayaasha iyo tillaabooyinka gaarka ah ee dhinacyadu ay qaadanayaan, waxaana tani mar kale ay muujinaysaa in lagu guda jiro xilligii iyo waqtigii ugu muhiimsanaa ee si dhab ah marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu uga fakari lahaayeen wax kasta oo la xiriira go'aanada, tillaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ee saameynta leh, taasoo ka dhigaysa in si gooni ah ay dhinacyadu uga fakarayaan marba marka ka dambeysa go'aanadooda iyo tillaabooyinkooda. xaaladaasi waxa ay muujinaysaa isbeddel dhinacyo kala duwan saameynaya iyo sidoo kale go'aano iyo qorshayaal gaar ah oo ay tahay in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu ku xoojiyaan. balse waxaa la soo warinayaa in amiirka sare ee waddanka Qatar uu si toos ah uga cudur daartay in uu qayb ka noqdo isla markaana uu qaabilo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyadoo dowladdu ay raaligelin toos ah ka bixinayso arrimaha lagula dhaqmay madaxda sare ee Soomaaliland. kadib markii amiirka Qatar uu arrintaas ka cudur daartay isla markaana uu ka biyadiiday, waxay taasi sababtay in mas'uuliyiinta Soomaaliland ay si degdeg ah uga soo laabtaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyada iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee saameynta ku yeelanaya, taasoo muujinaysa in isbedbeddelo dhinacyo kala duwan ah ay si dhab ah u saameynayaan, ayna taasi keenayso in si gooni ah looga fakaro wax kasta oo la xiriira qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee saameynaya. waxay mar kale tani muujinaysaa in isbedbedeladu ay marba marka ka dambeysa noqonayaan kuwo si gooni ah looga taxadiray, loo qorsheeyey, isla markaana marba marka ka dambeysa dhinacyadu ay bannaanka soo dhigayaan wax kasta oo la xiriira awoodahooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwan. marka si guud loo eego qorshayaasha dhinacyadan iyo tillaabooyinkoodu waa kuwo si gaar ah u keenaya isku imaanshiyo iyo sidoo kale kala tag rasmiya. Qatar waxa ay dirtay fariin ah inaysan u baahnayn Soomaaliland isla markaana aysan wax go'aan qaadanin. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay soo gabagabeeyeen si degdegana uga soo baxeen waddanka yar ee Qatar, waxaana sidoo kale uu sheegay inuusan dib dambe ugu laaban doonin haddii aysan wax ka bedelin qorshaha ay ku wajahayaan Soomaaliland. taas oo muujinaysa
in xukuumaddu markan ay si toos ah u qaadatay go'aan iyo sidoo kale qorshe geesinimo leh isla markaana ay dhinacyadu muujiyeen in marba marka ka dambaysa ay ka fakarayaan wax kasta oo la xiriira go'aanadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda kala duwan waana taas midda sidaa dhabtaa u muujinaysa isbeddelka tooska ah ee dhinacyadaas saameynta ku yeelanaya iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ka dhigaya in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay si toosa uga fakarayaan wax kasta oo go'aan ah iyo sidoo kale tallaabo kasta oo xiriir la yeelanaya madaxweyne cabdiraxmaan ciro ayaana sheegay in si degdeg ah uu u soo gabagabeeyey wax kasta oo la xiriira qorshayaasha iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee saameynta leh iyo sidoo kale go'aan kasta oo ka dhigaya in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay ka fakarayaan meelmarinta iyo sidoo kale ka midho dhalinta qorshayaasha tillaabooyinka iyo go'aanada kala duwan ee horyaalla xaaladdan ayaana waxa ay mar kale muujinaysaa in si gooni ah dhinacyadu ay u qaadanayaan tillaabooyinkooda iyo sidoo kale go'aanadooda marba marka ka dambaysana tani ay ka dhigayso in si gooni ah loo qaadanayo loona meelmarinayo wax kasta oo dhinacooda saameynaya xaaladdan ayaa waxa ay bannaanka soo dhigaysaa inay jiri karaan isbedbedello kala duwan iyo sidoo kale tallaabooyin gaar ah oo marba marka ka dambaysa saameynaya waxaana tani ay muujinaysaa in lagu guda jiro xilligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu ku xoojinayaan guud ahaanba qorshayaashooda madaxweyne cabdiraxmaan ciro markan waxa uu si toos ah u dareemay in qatar aysan marnaba diyaar u ahayn ka shaqaynayn islamarkaana aysan ogolayn qorshayaasha kala duwan ee hortabinta leh ee saameynaya dhankaas iyo somalilan taasoo muujinaysa in hadda isbeddel toos ah uu ku imaanayo dhinacyadan iyo sidoo kale tallaabooyinka dowladnimada waxayna tani muujisay in marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay qaadanayaan wax kasta oo la xiriira go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo xaaladdan ay ka dhigayso in lagu guda jiro xilligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambaysa ay ka fakari lahaayeen dhammaanba tillaabooyinkooda qorshayaashan ayaana muujinaya isbedbedello kala duwan iyo sidoo kale tallaabooyin gaar ah oo ay tahay in marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu ka fakaraan meel mariyaan islamarkaana ay qorsheeyaan wax kasta oo la xiriira go'aanadooda iyo sidoo kale tillaabooyinkooda waana taas midda sida dhabtaa u muujinaysa qatar iyo kooxaha kale ee ka agdhowba inaysan hadda danaynayn wax kasta oo la xiriira horumarinta somalilan iyo sidoo kale tillaabooyinkooda xaaladdan ayaana ka dhigaysa in xiriir walba oo qatar iyo somalilan dhex mari lahaa uu hadda soo gabagaboobayo islamarkaana dowladdu ay gebi ahaanba meesha ka saarayso